Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada Subeeristaan Channel. Maanta waxaan idiin haynaa sheeko aad iyo aad u macaan. Sheekadaas oo la dhaho Juxa iyo Dharbaaxadii. Ku soo dhowaada. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Juxa waxaa gadaal ka dharbaaxay nin. Kadib aad buu Dharbaaxadii uga xanaaqay, wuxuuna is yiri ninkii dil. Laakiinse ninkii ayaa kala hormaray. Raalli ahow. Juxa sheekadaas way mari weyday, waayo aad buu u xanaaqsanaa. Kadib iyagoo is haysta oo qayladoodii cirka u kacday, baa meesha waxaa soo maray garyaqaanka magaalada, kaas oo ay ninka Juxa dharbaaxay wax isu ahaayeen. Intuu wareystay labadii nin ayuu wuxuu yidhi, anaa idin kala garnaqayee maxkamadda kaalay raaca. Markii maxkamadda ay aadeen ayaa ninkii waxaa lagu xukumay lacag dhan oo ah 20 diinaar, oo ah lacagta laga isticmaalo waddankaas. Ninkii baa wuxuu yidhi ma haysto, laakiin garyaqaankii baa intuu u iljabiyey ayuu ku yidhi orod soo qaad lacagta. Juxa arrintaas wuu la yaabay, wuu fahmi waayey iljabinta wuxuu ka waday garyaqaanku. Ninkii wuu tegey, Juxana meeshii buu ku sugay. Saacado ka bacdi markuu sugi waayey baa waxaa u caddaatay in nimankan ay khiyaameen, wuxuuna soo xasuustay iljabintii. Markaas buu intuu Juxa kacay ayuu bahal dharbaaxo ah oo ciidamada ka duulisa ku dhuftay garyaqaankii. Kadibna wuxuu ku yidhi, markuu ninkii kuu yimaado lacagtii uu ii keeni lahaa adigu qaado. Meeshiina wuu ka soo baxay. Halkaas ku dhammaatay sheekadii. Fadlan haddaad taageerto sheekooyin noocan oo kale ah, hoos ku soo qor like-na saar. Fadlan haddaadan subscriber ahayn, hadda naga mid noqo oo subscribe garee kanaalkeena. Mahadsanidin.